بسم الله الرحمن الرحيم maanta waxaan doonayaa inaan sharaxaad ka bixiyo qaabka loo isticmaalayo programkan. Sidaa ogtiin programkan waxaan ugu talagalnay in isticmaalaan goobaha waxbarashada hadday ahaan lahaayeen iskoolada, macadyada iyo jaamacadahaba. Marka ugu horeysa aad programka soo gashid ama appka ay shirkadda Habas ICT Solution kugu shubto, wuxuu noqonayaa qaabkan aad u jeedid. Qaybtan ugu horeysa waa frontigii ama waa qaybtii website-ka oo macadka ama jaamacadda ama iskoolka uu yeelanayay isaga u gaarka ahaa. Halkaan oo kale waxaa saaran loogada iskoolka, emailka iskoolka, lambaradii, facebookgeedii, twitterka iyo youtube haddii iskoolku leeyihiin iyo qaybihii kale. Marka qaybtan waxaa soo geli kara qof walba oo ku xiran iskoolka. Haddaan hoos isi socono waxaan arkaynaa xogta iskoolka oo dhammaystiran. Iskoolkan waxaa la yidhahdaa Habas Primary School, waa tijaabo. Saa u jeedin koorsooyinka iskoolka bixinayay halkaan ayaa laga arkayaa. Macallimiinta iskoolka dhigayay, dadka ku xiran iskoolka hadday waalid noqon lahaayeen iyo dadka kale wixii ay comment ka bixiyeen iskoolka halkaan ayaa laga soo saaraya. Qaybtan u hooseysana waxaa ku arkaysaa emailada iskoolka iyo xogtii oo dhammaystiran. Marka ugu horeysa programka soo gashid qaabkan ayuu noqonayaa. Markii haddii aad u baahantahay inaad gudaha sii gashid programka gudaha u gashid, waxaad tegaysaa qaybtan ay ku qoran tahay staff login. Saa u jeedis qaybtan kore oo dhan waa waxyaabihii iskoolka u lahaa. Haddaa contact aas aan ku dhufano oo kale waxaa macaamiishu ka arkayaan meeshii lambaradii ay nagala soo xiriiri lahaayeen iskool ahaan ama macad ahaan ama jaamacad haddii aad tahay, meeshaas oo ay email kugu soo diri karaan iyo xog kale oo dhammaystiran. Marka waxaan rabaa inaan programka gudaha u galo. Marka haddii aan shaqaale ama macallin ahay waxaan ka gelayaa halkan. Haddii aan ahay waalid ama arday waxaan ka gelayaa halkan. Marka way kala duwan yihiin. Meeshan waxaa ku qoran staff login oo meesha ay ka gelayeen shaqaalaha iyo macallimiintu ama maamulahaba. Qaybtaana waa meeshii ay ka gelayeen ardaydu. Marka way kala duwan yihiin. Waxaan ku dhufanaynaa marka staff login. Waxaan ahay maamulaha iskoolka oo kale. Emailkaaga halkan ayaad gelinaysaa, kadib waxaad gelinaysaa passwordkaaga, kadib waxaa ku dhufanaysaa meeshan ay ku qoran tahay sign in. Haddii aad emailka ama passwordka ay ilowdid oo kale, halkaan ayaa ku dhufanaysaa forget password ay ku qoran tahay. Kadib emailkaaga ayuu u dirayaa passwordka, kadibna waad gelinaysaa. Marka waxaan ku dhufanaynaa meeshan ay ku qoran tahay sign in, emailkii passwordkii baan gelinay si aan gudaha u galno. Marka saa u jeedid wuxuu ina keenay barnaamijka gudihiisii. Marka qaybihii barnaamijka koobnaa oo dhan baa ku jira meeshan. Waan sharaxi doonaa qayb walba, waan dul istaagi doonaa sida loo isticmaalayo waxay qabataba. Sidekan waxaa ku jira garanaysaa qaybtii uu programka ka koobnaa ama sidebarkii, waana meesha ugu badan ee shaqooyinku ka dhacaan. Qaybtan waa dashboardkii. Waxaan ugu talagalnay maamulka inay xogo kooban oo fudud markiiba ay ka heli karaan iyagoo aan riboodiyo iyo waxyaabo kala raadin. Qaybtan korena waa qayb uu qof walba yeelanayo oo ay ku jiraan jatinkii iyo userkiisa meeshu ka bedelanaa passwordadii, meesha ardayda kala raadin lahaa, luuqadaha meesha iska bedeli lahaa iyo qaybo kala badanba. Marka qayb walba aan isdul istaagi doonaa. Intayna u gudbin qayb walba, qofku markuu userka ama passwordka la siiyo ugu horeysa programka soo galo gudaha usoo galo, shaqada ugu horeysa qabanayo waa inuu bedesho passwordkiisa. Sababtoo ah passwordka lagu soo diray waa default, waa 1 ilaa 5 oo kale. Marka waxaa u baahan tahay password adig kuu khaasa inaad yeelatid. Marka si aad u yeelatid password adig kuu khaasa, waxaad tagaysaa geeskan ugu shisheeya oo profile-ku ku qoran yahay ama sawirkaagu saaran yahay oo kale. Waxaad ku dhufanaysaa click baa siinaysaa. Marka ku dhufatid waxaad ku dhufanaysaa meeshan ay ku qoran tahay password. Sidoo kale halkan waa ku dhufan kartaa profile ay ku qoran tahay. Waxaad arkaysaa profile-kaaga xogta kugu jirtay ee tusaale ahaan magacaaga, meesha ku dhalatay iyo xogihii kale ee aad adigu lahayd. Haddii aad ka baxaysidna programka ka baxaysid waxaad dhahaysaa log out si uusan qof kale u gelin. Marka waxaynu u baahannahay haddeer inaynu iska bedelno passwordka. Waxaan ku dhufanaynaa password. Sidaa u jeedid wuxuu ii soo saaray meeshii aan isaga bedelayay passwordka. Marka si aan isaga bedelo waxaan ku dhufanayaa halkan passwordkii hore baan dooranayaa. Passwordkayga hore waa kan uu ii save garaysan yahay. Marka inaan bedelaan rabaa passwordka cusub geli buu igu yidhi hadda. Marka waxaan ka dhiganayaa 1 ilaa 5 oo kale. 1 2 3 4 5. Wuxuu leeyahay passwordka cusub mar labaad ku celi. Mar labaad baan ku celiyay change baan idhi.
marka saas ayuu isku bedelay. calaamadan greenka buu kuu soo saarayaa, waxaad ku garanaysaa inuu passwordkii isbedelay. so saasuu isku bedelay. haddii uusan isbedelin khalad jiro wuxuu kaaga dhigayaa casaan meeshaan, wuxuu leeyahay waxbaa khaldan. marka passwordkii saasaan ku bedeshay. markaan passwordka bedesho si aan hometii ugu noqdo, waxa weeye meeshaan programka dashboardkii ama meeshaan kasoo galay, waxaan dooranayaa halkaan ay ku sawiran tahay loogada iskoolka oo kale waa ku sawiran. click baad siinaysaa, markaa ku dhufatid wuxuu kugu soo celinayaa hometii saa ujeedid. marka videogan waa videogii ugu horeeyey. waxa weeye faham guud baan rabnay inaad ka qaadatid qaabka passwordka u bedelaysid, qaabka usoo gelaysid iyo qaabka aad uga baxaysid. marka guud ahaan intaas ku kooban yahay videogan. hal wax baa ugu dambeeya oo ah marka aad ka baxaysid programka saan inii sheegay, waxaa ku dhufanaysaa profilekaaga, kadib waxaad tegaysaa sign out. simply wuu ka baxayaa. sign out haddaad dhahdid wuxuu ku keenayaa banaankii ama meesha kasoo gashay saa ujeediin. marka videogan waxaan idin rajeynayaa inaad fahanteen qaabka aad u isticmaalaysaan. haddii ay jiraan waxyaaba aad fahmi weydeen waa ku ceshan kartaan videoga. sidoo kale waadna soo weydiin kartaan wixii su-aalaha ama wixii cabasho aad qabtaan. waa mahadsantihiin.